بسم الله الرحمن الرحيم magacayga waa nuur insha allahu tacaala xisaabtaan dhiganayna maanta ciwaankeedu waxaa weeye trigonometry. dhinacan waxaa la yiraahdaa cathete, dhinacna waxaa la yiraahdaa cathete, halkana waxaa la yiraahdaa hypotenuse. marka trigonometry waxaa la yiraahdaa bara rätvinkliga triangel, bara rätvinkliga triangel. Oops, bara rätvinkliga rätvinkliga trianglar. marka sinus vinkel är lika med A delat med C. Det betyder motstående katet delar med hypotenuse hypotenusan. Motstående kateten delar med hypotenusan. Cos vinkel är lika med B delar med C. Det betyder närliggande delar med hypotenuse. Hypotenusan. Tan vinkel är lika med A delar med B. Motstående kateter delar med närliggande katet. Närliggande katet. marka la xisaabinayo trigonometry waxaa la xisaabiyaa in geesaska la xisaabiyo, sidaan in la xisaabiyo tusaale ahaan in la xisaabiyo geeskan hagan waxaa weeyaan waa B O iyo C. marka haddaan dhahno T centimeter oo närliggande ah, marka waxaan leenahay cos oo ah 50 grader. markii la xisaabinay cos muxuu ahaa, waxaa weeye B delar med C.
närliggande katet delar med hypotenusan. Hypotenusan. $50 grader, det betyder 0, b, jag säger så här, kosvinkel är lika med a, eller b, det är b delar med c. X är lika med 10 delar med 0,6. Eller 10 delar med 50 grader. Är lika med 16. Waxaa marka hadda la xisaabinayo sida marka la xisaabinayo geeska la soo saaro marka x wuxuu ahaa hypotenusa oo x ayaa waxay tahay 16 centimeter. marka la xisaabinayo sida wasaas marka la xisaabinayo vinkel marka la xisaabinayo vinkel vinkel waxaan dhahaynaa 8 centimeter iyo halka waxaan leenahay 6 centimeter marka waxaa weeye räkna ut en vinkel. So marka halkan waxaa weeyaan halkan o delar med p delar med p tan vinkel. Alltså motstående katet delar med närliggande katet. Så waxaan leenahay 8 delar med 6 delar med 8 är lika med 0,75. Det betyder en avrundning, om man avrundar. Så tan vinkel är lika med 6 delar med 8 är lika med 36 tror jag grader.